بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومال أحد بشا مينا أي تلواتني أفر لوذا كوني لواتنك وحن شعلها أما أن شعلها يستي إن أن عدى يوم مسائل دورة إلى سديد مسألة وكرلتي عيدي لك عيدي سنة كان لوذا كوني لواتنك أما دنك هجريغا كون أفر بقولي أفرتني كوغا سايشاس أورنتي سؤاله صون نقدان dadka qaarkoodna siyaabo kala gedisan ay uga hadleen ama siyaabo kala gedisan ay u fahmeen inaan cadeeyo ayaan ugu talagalay طبعا masaayishani sanadkan kaliya ma ahay mar walba ay soo noqdaan horeyna way u dhacaan tafaasiil siyaada inaan ka bixino faahfaahin waqti dheer bay u baahan laakiin si kooban baan jeclahay insha Allah taala inaan uga hadlo marka hore intaanan gelin ka hor dhac ahaan waxaan dhihi lahaa masaayisha diinta ku saabsan sharciga ku saabsan waxa laga maarmaan ah ruuxa ka hadlayay in uu sharciyeeyo oo saleeyo oo taasiiliyo oo uu u celiyo ama nusuustii ku soo aroortay haday quraan tahay haday sunno tahay u celiyo kutubtii fiqhiga iyo culimadii fiqhiga iyo culimadii sunnadu say uga hadleen qaabkaasa masaa'isha diinta loo waajahaa noocay dooni ha noqdeen dadku marka waa laba dadna waa dad caam ah oo muslimiin ah oo masaa'ishan aan baari karin oo ka salgaari karin dadna waa dad culimo ah oo wax baari kara ogaan kara masaa'isha aqoonteedii meeshay ku taalo ka salgaari kara ninka dambe oo ka salgaari kara waxaa laga maarmaanaa inuu masaa'isha baadho oo raadiyo oo maxaa ku soo arooray culimadu say uga hadleen maxay ku kala aragti badan yihiin maxay isku waafaqsan yihiin bacda baxthi iyo baadhid kadib wixii u soo baxay inuu ka diin dhigto dadkana u sheego dadka kale ee caamada ah ee masaa'isha aan ayagu baari karin oo awoodeeda lahayn ayaga waxa laga maarmaana masaa'isha diinta guud ahaanba in ay weydiiyaan cidda ay aqoontiisa iyo alla ka cabsigiisa ku kalsoon yihiin oo ahlu dhikri iyagu marka ay u arkaan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kadibna wixii uu u sheego inay ka diin dhigtaan إنما شفاء العي السؤال مدو نبي صلى الله عليه وسلم روحا أن وحقرنينين داودي سوى سؤاشة كدب نوحي لو جواب إنو قاتو مدام إساو أسن مسألة ذا كسل قاري كرينين تاوامد وحقلد دد أن قارسي سنين إني مسألة ذا الصليان إني سيدي علماء أوكال مسألة ذا أغاهلان وأي بوسكي ددك أهل العلم أوكاليتا إنتي فريستان فتاوي خلدان إني أمد السيان وقلد سيداس دراديد إنتاس هورت رعبان وليهاي إنتا كدب مسائل أن دوني نعدي وحوي سان هوريب وشيغي مسائل كذا شيء عيدا لك العيدي مسلمين تو أي كالعيدين هورين واكل عيدي جيرين أو تاريخان ويسو جرتي مسائل هورين دوني إن عدي مركا وحوي بيشا دلشديدا ama tan ramadaanka ha noqoto ama tashawaal ha noqoto ama midda xajka ee dilxij ha noqoto bisha dhalashadeedu maxaa lagu sugaa shariicada marka la yiraahdo iyo diinteena tawaabteedu waxa weeye saddex mid kamid ah ay ku sugnaataa salaadana waa mas'ala aan la yaqaan way ta koobaad ay bisha ku sugnaato waxa weeye ama dariiqa koobaad ay bisha lagu sugo waa in si toos ruuxu u arko isagu صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم aragtida bisha ku sooma aragtideedana ku afura taasi waa dariiq adiga arkay hatta kaliga hadaad aragto ood hubsato
inaad ku soonto way dariiqa labaad bishii maalinkii la filayay galabtii la filayay waa la arki waayay 30 beri baa la dhamaystirayaa 30kii beri markii la dhamaystirana waa la afurayaa waa la ciidayaa hadday shawaal tahayna oo soon soo galayana waa la soomayaa iyadana xadiista nabiga ku cadahay sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku wuxuu yiri bishii hadday idinka qarsoontood arki weydaan tirada 30 dhamaystira markaa haddii 30 la dhamaystiro ama bishii hal la arko ama yaan la arkin waa la afuri hadday bisha dhamaanaysa ay tahay shacbaanna waa la soomi bisha dhamaanaysa hadday soon tahayna waa la afuri maadaama 30 beri muxuu ahay bishii la xisaabiyay taana waa dariiqa labaad oo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam baa ku cad waana mas'ale la isla ogolyahay inta badan culimada dariiqa saddexaad oo ay ku sugnaato waxa weeye inay dad arkay soo sheegaan dadka arkay baa laba mid ah marka dad fara badan oo meelo kala duwan jooga oo aan is arkin oo aan heshiin karin oo wax isku waafaqi karin oo meelo kala fog kala duwan jooga inay soo sheegaan tiradooduna badan tahay midda waxa la yiraahdaa waa tawaatur bal istifaada la yiraahdaa macnaheeduna waxa weeyaan waa yaqiin mar haday dadku aad u bataan meelo kala gedisanna ay ka soo sheegaan waa xaqiiqo yaqiin ah oo aan shaki gali karin isla taa waxa ku jira qodob kale isagana dadka arkay ma badna laakiin bishii ramadaan inay dhamaatay baa waxa sheegay laba ruux oo muslimiin oo caadiliin ah ayadana jamaahiir ahli cilmi siday qabaan laba ruux oo muslimiin ah oo lagu kalsoon yahay hadday sheegaan bishii shawaal inay arkeen ayadana waa lagu afurayaa aragtidoodana waxba lagu qaybsanayaa waxa la mid ah iyadana sidoo kale bisha shawaal markay bisha waxa shacbaan dhamaadkeeda ramadaanna dhalanayo hal ruux oo muslim ah haduu sheego ayadana cala saxiix xadiiska nabiga sidoo ku sugan culimo badanna ay qabaan ramadaan waa lagu soomayaa waa marka bisha la soomayo laakiin marka laga afurayo waxay u badan yihiin laba ruux iyo ka badan inay soo sheegaan almuhim soo sheegidda bisha hadii la soo sheego laba ruux iyo ka badan ay soo sheegaan ayadana waxa waa dariiqa saddexaad oo bishii waa lagu soomi waana lagu afuraya maxaa ku tusaya axaadiista nabiga ku cadahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xadiidkaas abu malik al-ashja'i xadiid uu warinayo wuxuu leeyahay xuseyn ibn xaathir al-ajadali ayaa ii waramay buu leeyahay amiirka makka ayaa khudbeeyay markaas wuxuu yiri ahida ilayna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an nansuka lirru'ya nabigu wuxuuna amro nugula ballamay inaanu ku cibaadaysano ku ciidno aragtida fa in lam narahu hadanan arkin oon arki weyna bishi wa shahida shahida adlin laba ruux oo muslimiin oo caadilana cadaalad ku sifaysan oo aan lagu ogeyn wax xumaan ah laba ruux oo muslimiin oo caadiliinana ay sheegaan inay arkeen nasakna bi shahadatihima qiraalka iyagu qireen inay arkeen ayaanu markaa ku cibaadaysanayna oo ku afurayna oo bisha ku soomayna oo ku ciidayna waa laba ruux nabiga sidana amray buu sallallahu alayhi wasallam oo nasiyay dardaarankan nasi sidoo kale waxa jira xadiidka Abdullah ibn Umar oo xadiidka Abu Daawud iyo qeyrkii baa wariyay xadiis saxiix ka hore xadiidka Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay tara an-nas al-hilal dadkii baa bishii raadiyay inay arkaan bay isku dayeen fa akhbartu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam anni ra'aytu fasamahu markaas nabiga waxaan u sheegay in aan ugu arkay hadaan Abdullah ibn Umar markaas nabigu ku soomay aragtidaan u sheegay wa amara an-nas bi siyamihi dadkana wuxuu amray inay soomaan iyadana Abu Daawud iyo qeyrkii baa wariyay xadiis saxiix marka bisha dhalashadeeda markay ramadaan dhalanaysa hal ruux aragtidii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kuna soomay ummadana uu ku soomiyay sallallahu alayhi wasallam bisha ramadaan markay dhamaanaysayna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka ku afura laba ruux oo caadiliin oo muslimiin haday soo sheegaan ku afura buu nabigu sallallahu alayhi wasallam amarkaas ummadda siiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi
masaladaasi horta waa mas'alo oo saddexda mid ka mid ah haday sugnaato sharcan masaladu waa cadda bishii baad aragtay soddon baad dhamaystirtay inta arki weyday dad baa soo sheegay laba ruux u yar yihiin ramadaan inuu dhamaaday oo arkeen bishii shawaal intaba nusuus cadcad baa ku sugan in lagu afurayo nabigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma aha sheekh hebel baa yiri iyo wadaad hebel baa yiri iyo ma aha waa nusuus nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam inta mid ka mid ah hadii lagu afuro marka hadii midalan 29 inta la soomo bishii la arko oo dad soo sheegaan kadibna lagu afuro kadibna habeenkii 30 ay ahayd bishii la arki waayo afurkii la afuray ciidii la ciiday khalad miyaa 30 baa midalan la dhamaystay 30kii markii lagu afuray habeenkii ka dambeeyay ee la filahay bisha in la arkaaba la arki waayo waxaan leenahay soonkeena bilowgiisii ba khaldanaa waa masaa'il aynu ka hadli doono oo aan soo wadno waa طيب masalada xigta waxay tahay hadii ay soo aroortay macluumaad bishii lama arkin bishii baa la waayay meeshii la filayay ramadaan baa la filayay inay dhalato waa la waayay ramadaan habeen maalintii 29 ka 30 ku soo galeysay ayaa la raadiyay waa la waayay sidii baa lagu go'aansaday lagu cilaamiyay waa lagu soomay gadaal baa waxa ka timid macluumaad sax ah oo sheegaya bishii inay dad arkeen ama maalinimadii dambe iyadoo la sooman yahay baa warku yimid ama isla habeennimadii baa warku soo kordhay warkaasi ma la qabsanayaa mise waxaan leenahay maadaama annaga aanu xalay go'aansanay inaan soonno warkan dambe dib ka yimid muxuu yahay wax jira ma aha mise warka waa la qaadan xat habeennimaha noqoto maalinimo iyadoo la soomay xataa hadii uu warku yimaado in bishii dad arkeen waa lagu afuri arintu say tahay mas'aladaasina waa mas'alo la doonayo iyadan inaan cadeyno wareer iyo walaahu ka taagan yahay xaqiiqaduna waxa weeye nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii bay ka sugan tahay ayagoo go'aansaday inay soomaan oo sooman in bishii loo soo sheegay in shalay la arkay kadibna uu yiri maanta soonka aad soomantihiin jabiya maadaama bishii shalay la soo sheegay xilligu nabigu ka noqonayo waa goorma waa maalinimo dadkuna waa soomayeen xalaynimo bishii la arkayo macluumadoodu kadib dhacday inay soo gaadho ayaa dib ka soo gaadhay markaasuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam in la afuro xadiidkaasi waa xadiidka Rabi'i ibn Hirash wuxuu ka warinayaa rag adeeradii oo saxaabadii nabiga kamid ah sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ikhtalafa an-naas fi aakhir yawm min ramadan dadkii waxay isku khilaafeen maalinkii ugu dambeeyay bisha ramadaan bay isku khilaafeen faqadima a'rabiyan labanino reebadiya aba yimid fashahida 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam markaasay nabiga agtiisa marxaati fureen shahida billahi la ahalla al-hilala amsi 'ashiyatan nabiga agtiisa marxaati fureen oo ku dhaarteen inay bishii shalay galabnimo iyagu arkeen shalay galabnimo goorma la jooga maalintii dambe la jooga waana la soomay fa amara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an-naasa an yuftiru markaasuu nabigu dadka amray inay afuraan afura rasuulku sallallahu alayhi wasallam labadan inay warka soo sheegay labadan reebadiye ah tabcan socota meel bay ka yimaadeen yaani waxa weey sidaasuu nabigu dadku afuriyay sallallahu alayhi wasallam riwaayad kale waxay leedahay dad safara nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo yiri annaga shalay bishii aragnay kadibna nabiga dadku wuxuu amray inay afuraan riwaayad kale waxay ku dareysaa in ay berri subax ay u soo kalahaan salaada ciida berri inay u soo kalahaan maantana afuraan laana maanta ay sooman yihiin maadaama ay dib ka soo aroortay macluumaad la helay in bishii xalay la arkay maanta ay sooman yihiin nabigu wuxuu ka soo qaaday inay ciid tahay ciidna in la soomo waa xaraam bil ijmaac saas daraadeed uu nabigu maalinimadii afuriyay soonkii xalay la qaatay go'aankiisina nabigu waa ka noqday sallallahu alayhi wasallam laana macluumadii hore wax ku dhisay macluumadaas maqnayd macluumadii markii soo gaadhayna nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qaatay dadkana wuxuu amray inay afuraan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi isla sidaas oo kale waxay ka sugan tahay khulafadii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam
muxuu ahaayey iyadana Abu Daawud iyo qeyrkii baa xadiidka wariyay sidoo kale waxa sugan sida Abu Wa'il Shaqiiq ibn Salama uu warinayo wuxuu leeyahay meel la yiraahdo Khaniqiin baan joognay fa ahlalna hilal shawwal yani naharan bishi shawwal baan aragnay buu maalinimo iyagoo maalinimo la joogay bishii arkeen fa minna man saama wa minna man aftar maadaama maalinimo bishii aan aragnay qaarna way iska soomaneen soonkoodii iska wateen qaarna way afureen waxay yidheen war bishii waatane maalinba ha ahaatee bishii waatane in afuriya way afureen fa ataana kitaabu Umar marka yani qoraal iyo waraaq ka socoto Umar ibn Khattab oo khaliifkii muslimiinta abaa noo yimid buu oo dhahaya in al-ahillata ba'daha akbaru min ba'din biluhu way kala weyn biluhu marka bishu markay dhalanayso way kala weyn xajmigoodu fa idha ra'aytum al-hilala naharan bishi hadad maalinimo aragtaan qorraxdii oo dhicinba bishi aad aragtaan oo maalin ay tahay fala tuftiru ha afurina soonka ha jabinina illa an yashhada rajulani annahuma ahallahu amsi illa inay labanin ka markhaati furaan inay shalay markay qorraxdu dhacaysay arkeen mooyee oo marka haday dad yimaadaan dhahaya shalay markay qorraxdu dhacaysay annaga aragnay bisha iyaguna marka maalinta ay sooman yihiin Umar wuxuu leeyahay maalinkaasi marka soonka jabiya oo labada ruux ay yimid bisha sheegay inay shalay arkeen soonkiina maanta aad soomantiin u jabiya xadiiskaasina iyo atharkaasina waa athar isaguna saxiixa عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة سيدوك المصنفك محوء هاي الدرقطني بيهقي أي مفر بدن باورينيا وانا حديث صحيح بيهقي سيدوك محوء هاي حافظ بن حجر إمام النووي وحيليه هو سونه أثر صحيح طيب سؤال شو وحي تهي مركب ماشا وحي نفهني وركن رحيا أمدي صوم بيكو ترقش وصوم بيكو أنصت oo soon baa loo cilaamiyay kadib warkan dib ka yimid maxaad umada ugu lugoynaysaan warkaasi wuxuu khilaafsan yahay hadiyigi nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo hadiyigi saxaabadiisa iyo dhaqankii salafku khilaafsan yahay maxaa yeelay bishu macluumadeedu way soo daahi kartaa dad meel ka yimid baa maalinka dambe iyadoo la sooman yahay sheegi kara habeenkii xilli dambe soo dhici kartaa waqti hore la ogaan karaa وفيرسد وقت النبي صلى الله عليه وسلم معلومات وحي إيمانيسا إن بيشي حلال أركي ماني جدا ما يجوا صوما بيو إيمانيسا ويقاضنا يا نبي الصحابي صلى الله عليه وسلم سيداس درادد ما ردتكو إني هو الرع نقضانو سيداني مدع كرتي سيدان ويدع كرتاي ما هي وحني وحياله هراي ودعوي شرعدنا أي داويسي أو ميل صارتي واه قضب كاسنا ومسألة حكتي الصدحات أو معناه هذا هي حلي والبا حتى آثار تقاركود وحكوسو أروري qorraxdu xataa sii dhici karto galabnimadii la joogo haday dad yimaadaan inay shalay bishii arkeen sheegaya oo lagu kalsoonaado casarka kadib soonka wala jabinaya sababtu waxa weey maalinka la soomaya waa ciid macnaha ciidna lama soomi karayo sidaas weey macnaha mas'alada afraadi waxa weey oo aan doonayo inaan taabto kaba soo qaad 30 bari baynu dhamaynay رمضان صدّن بينو دمينا وأفرّي أما ضد بعدي إني أركان أو أنكو أفرّي كدب هبين كي حجيبان بيشي بأركويني محن سميننا ما وحن لنا هاي صون كأني هرا خلدنا ماشي بالله كأني هرا خلدنا ما وحن لنا هاي ضد كي أركتي ده صوش شيء باسموتسي أما بين شيء مسه habeenka dambe ee bisha la arki waayay la danayn maayo maadaama soddon la soomay ama ma ahee dad lagu kalsoon yahay soo sheegeen oo sheegidoodii lagu afuray habeenkii dambe bishii la arki waayay wax ka soo qaad ma yeelanaysa miyaa mise waxba laga soo qaadayaa waa mas'alada xigta waay mas'aladaas culimadeenu waa ka hadleen gaar ahaan waxa ka hadlay al-Imam Shaafi'i alayhi rahmatullah wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa umka ah asxaabtiisuna sidaas ay ku qaateen oo mas'alada kutubtooda kaga wada hadleen oo ku bisleeyeen rahimahumullahu jamiican mas'aladu kutubta fiqiga shaafiiciga oo dhan baad ka heli kartaan
waxay leeyihiin oo imaam shaafici waliba uu umka ku cadeynaya hadii bishii ramadaan إذا قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله 30 يوما فلم نرى الهلال بعد 30 فهل نفطر فيه حديث رمضان كمركو باللابني هل روحو soo sheegay warkiisa aynu ku soonnay warkiisi inagoo ku soconana 30kii bisha Ramadaan aynu dhamayno soddonkii markaan dhamaynayna habeenkii ka dambeeyay bishiiba arki weyno miyaynu afurayna mise afurimayno soddon markaan dhamaynay habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay ma afuraynaayo ma ciidayna mise ma ciidayno imaam shaafici ali rahmatullah nas umkiisa wuxuu leeyahay waa la afuri waxaan kala qaad lahayn habeenka macnaha waxa weeye soddonka aynu soonnay oo soddonka intaynu dhamaynay bishii ay dhammaan tahay bishii in la arkana la sugayay la arki waayay soddonna la soomay kala qaad ma laha ama samadu iyo hawadu ha furnaato oo daruur iyo boor yuusan ku gudbanaanin ama ha ku gudbanaado kala qaad ma leh imaam shaafici asxaabtiisu marka waxay leeyihiin waa midda uu leeyahay imaam nawawi asaxuha cinda almusannif wa jamaahir al-asxaab wa huwa nassuhu fi al-umwa يعني وحوي أصحاب المذهب انتو ضبضا إيو محوى جمهور الأصحاب كانوا لي بإمامك وكو عدي وحوليه هاي والغو أفوري حالغو أفوريا وحالغو أفوريا أركتدي هلك الروح وشيغي بيش اللغو صومي رمضان صدنا اللغو بوحي هبينكي صدنكو بوحسمين اللي أركي واي بيشي ما وحان لينا هاي بينبو نو شيغي صدن هدي بوحسنتي بيشا والا أركي لها وو خلدمي mise waxaan leenahay ma aha aragti ruux muslim ah oo la qaad shariicadu ina amartay baynu wax ku salaynay soddonna waynu ku buuxinay bishii hadaynu arki weyno yeelkadeeda waynu ku afurayna waynu ku ciidaynaa imaam shaafici sidaas uu leeyahay madhabkiisana sidaas raajix ah asxaabtiisuna sidaas ay u badan yihiin waana midka uu leeyahay al-imaam an-nawawi alayhi rahmatullah madhabka shaafici hada huwa al-madhhab sida madhabku sidaas weeye marka mas'aladii culimadii baa horay uga hadashay hadii marka billahi alaykum hal ruux oo muslim ah oo lagu soomay oo kadibna soddon markay buuxsamo bishii la arki waayay hadii la tuhmi waayay oo la dhihi waayay been buu sheegay ama la dhihi waayay wuu khaldamay ama la dhihi waayay wuu lugooyay ka waran haday dad badan oo muslimiina arkeen ka waran haday intaasoo dal oo muslimiina arkeen ka waran hadii intaasoo khalaa'iq ah ay soo sheegeen see loo dhihi karayaa way ismoodsiiyeen been bay sheegeen dadka waa lugooyeen say ku imaan kartaa hal ruuxna culimadu waxay leeyihiin oo bisha ramadaan bilowgeedii lagu soomay soddonna lagu buuxiyey soddonka lagu buuxiyey aragtidiisa iyo markhaati furkiisa waa lagu ciidayaa xataa bisha yaan la arkin sida marka la yiraahdo macnaheedu waxa weeye sida marka loo afuro ama aragti la soo sheegay ha lagu afuro ama soddon buuxo soddonko la buuxiyay ha lagu afuro haday dhacdo marka kadib bishii habeenkii dambe in la arki waayo maxaa la sameeynaya waxaan rabaa inaan idhaahdo shariicadu inooma dirin marba haddii qaabkii ku afura aynu nidhi aan ku afuray qaabkay ina tiri ku afura haddaan ku afuray waynu aragnay soddonkaan dhammaynay dad lagu kalsoon yahay oo tiro aba soo sheegaynu ku afurnay intaa wixii ka dambeeya ma bil weyn baa la arki doonaa habeenka dambe ma meelaha laga arki doonaa ma la arki maayo laynooma dirin ninkii cilmigeeda hayana ha keeno nalooma dirin annaga wax way daahirka shariicaduna amartay ee xadiista nabiga ku sugan taa iyada way aragtidaynu ku afurnay ma ku kalsoonahay haa طيب صدنكي ما بوحينay oo si fiican oo lahubana ma ku soo bilownay ama aragti sax ama marxaati sax ama soddon oo shacbaan oo dhamaynay ma ku soo bilownay soddonkiina ma dhamaynay ha wixii ka dambeeya حتى bisha in la raadiyo xul looga ma baahna inaad buur fuushay inaad raadisay meel heblo waa laga arki waayo dalka intiis badnaa laga ma arkin iyo waxa si ay idin dirsaday ii sheega yaa diray xagee ku taala
yaa yiri raadiya habeenadaas dambe bishii hadayba muxuunahay dadku ummadii ciiday oo qaab sharciya oo shariicadu inoo dirtay lagu ciido lagu afuray yaa yiri gadaal ka raadiyo hadaad arki weydaan soonkiini waxba kama jiraan ciidiini afurkiini waxba kama jiraan ka soo qaada yaa yiri xagee ku taala nabiga may ka sugan tahay saxaabadiisii may ka sugan tahay xagee ku taala arin runtii yani ummadda in lagu wareeriyo sax ma aha wax aan la hubin waxaan salaysnayn oon cilmiyeysnayn ummadda in lagu wareeriyo ma aha culimada nusuustoodii wata nabigana sallallahu alayhi wasallam ahadiistiisii wata marka hore in la iska hubiyo weeye dadka soo sheegaya ma lagu kalsoon yahay in la xaqiijiyo hadii la xaqiijiyo oo sida lagu soomo lagu afuro marka kadib bishii la arki waa iyo way yartahay iyo weyntahay iyo laba habeen bay u dhigantaa iyo hal habeen bay u dhigantaa adeer rayaalo khayr Allah idin siiyo waxaas la isuma dirin ninkii leh waa la isu diray oo waa laga maarmaana hada cadaynteeda ha keeno khayr Allah idin siiyo waxa laga hadlayo waa masaa'il diiniya oo ta'siil iyo sharci iyo u baahan fiqhiga iyo aqwaashi ahli cilmiga u baahan bal culimada muslimiinta qaar kamida sida al-Imam al-Bayumi oo Shaafiiciyada culimadooda kamid ah wuxuu sheegayaa dad lagu kalsooyo muslimiinta ayaa sanadihii yani waqtiyadii tii qaar kamid ah waxay marxaati fureen inay bishii arkeen ayadoo oo xisaabta falakigi ay leedahay lama arki karo ayay sheegeen inay iyagu arkeen waxba lagu qaybsaday waa lagu afuray waxba yani wax way dadkii waa qaateen habeenkii ka dambeeyay ayaa hadana bishii la arki waayay ayadoo hawadu furan tahay oo wax daruurana ayna jirin wax muxuu ahay bus iyo boardna ayna jirin oo hawadu furan tahay ba habeenkii dambe la arki waayay ayaguna habeenkii hore marxaati fureen inay arkeen wuxuu leeyahay habeenkii dambe hadii la arki waayay waxba laga soo qaadin oo looma aaba yeelin labadii ruux muslimiinta marxaati furkoodii lagu soomay lagu afuray baa lagu socday iyadii baa lagu ciiday iyagii baa wax lagu qaybsaday marka wax waatan hadda taagan oo kale dadku ay isku wareerinayaan oo kale way wuxuu ka hadlayo mas'aladaasi ayaduna mas'alo kale waay mas'alada shanaad in doonayo inaan baraarujiyo waxay tahay hadii dadku waxyaalaha caadaysteen iyo meelaha shariicadu wax ku xidhay iskhilaafaan kee la qaadanaya مثلا عادة waxa kamida sida caadiga ah curfiga ah mujarrabka ah hadii bishu ay soddon ku dhamaato habeenka ka dambeeyay in bishii la arko bay caadaysteen oo waliba ay weynto korayso way arki waayeen caadadii aqoon jireen ba suuroobi weyday waa qodob dhanka kale soddon baa dhamaatay oo shariicadu tiri ku afura dad muslimiina marxaati furay oo shariicadu tiri ku afura wixii dadku aqoon jireen arki jireen caadadooda ahaa iyo soddon buuxadii oo lagu afuray ama dadkii muslimiinta marxaati furkoodii lagu afuray baa isku dhacay keen qaadanayna waay markaas oo kale la shaka waxa la qaadanayaa shariicadu meesha wax ku xidhay manaadka shariicadu wax ku xidhay waxa weeyaan aragti ku afura marxaati cad oo ku kalsoontihiin ku afura bisha soddonkeeda ku afura halkaas ay shariicadu wax ku xidhay inta wixii ka dambeeya nalooma dirin in la yiraahdo kadibna habeenka dambe fiiriyo oo bisha qiyaas oo haday markaa noqon weydo sidii aad ku afurteen ka noqda shariicadu ma dhihin shariicadu waxay noo dirtay saddexda qodob ku afura ku sooma inta wixii ka soo haray waa caadad dadku ay caadaysteen sidana aan aqoon jirnay sidana aan arki jirnay bil soddon inay inta la egto la wada arko bil muxuu ahay soddon haday dhaafto iska badaa in caalamka laga wada arko waxaasan arki jirnay waxaad arki jirtay iyo nusuustu meesha wax dhigtay way kala duwan tahay aragaaga iyo waxaan u soo joogi jiray iyo waxaan maqli jirnay meel dhigo maxaa la yiri culimadu tiri maxay shariicadu tiri maxay nusuustu tiri waxaynu ka hadlayna diin waaye caada ma aha dhaqan ma aha hidam ma aha waan soo arki jiray ma aha waxaan ka hadlayna waxa weeye waa mas'ala diiniya waa mas'alada diiniga markaan ka hadlayno walaalayaal khayr Allah idin siiyo saan ku hormariyayba waa in loo noqdo maxay shariicadu tiri marka in la shaki geliyo muslimiin aragti
ku afuray ama markhaati ku afuray ama soddon buuxiyey in la shaki geliyo laga shaki geliyo afurkoodii iyo ciidoodii calashaani habeenkii dambe bishii maanaan arkin ama habeenkii dambe way yarayd ama laba uma muuqanin warkaasi war saxsan maaha warkaasi war saxsan maaha war shariicada waafaqsanna maaha ninkii haya oo wax sharciga u hayowna qaab cilmi ah oo naqli ah oo nusuus leh oo aqwaasha ahli cilmiga leh intaad uga hadasho cilmiye mas'alada haddii kaleeto waxaan leeyahay walaalayaal dadka caamada muslimiintoona ha wareerina wadaadada aan mas'aladu u bislaanowna khayr allah idin siiyo dadka ha wareerinina oo mas'aladan talaata oo mas'ala cad oo nusuus iyo aqwaashi ahli cilmiga leh oo ay fardiyeen oo ka hadleen saas haday dhacdo kulli ay faahfaahiyeen way meelaheedaad ugu tageysaan saas daraadeed caadaadka dadku ay caadaysteen iyo haday iskhilaafaan yani wax weeyaan wixii shariicadu ay wax ku xidhay kii shariicadu wax ku xidhay baa la qaadanayaa saas daraadeed ba muxuu ahay culimada shaafiiciyadu nin kamida Abu Bakr ibn Haddad la yiraahdo oo mas'aladaasi muxuu ahay madhabka ku khilaafay ayuu imaam al-Haramayn Ali rahmatullah ka hadlay markaas wuxuu yiri ra'yigiisa markuu ka hadlay wuxuu yiri hada muzayyaf ghayru ma'dud min al-madhhab waa wax jira ma aha buu ra'yiga isaga ra'yi muxuu ahay bishii in la arkay ahayd dil arki waayay aragtidii hore in lagu noqdo oo la shaki galiyo warkaasi war jira mulay imaam al-Haramayn saxna way madhabka Shaafiiciga sidaas waa sidaan horeyba imaamka uga soo naqlinay imaam Shaafici Ali rahmatullah mas'alada lixaad doonayo inaan ka hadlo waxay tahay sidaas markaan yani wax weey intaan ka bixin qodobkaasi waxa weeye dadkii sabtida afuray sabtidana ciiday maxay ku ciideen maxay ku afureen waxay ku afureen oo ay ku ciideen aragti mustafiid ah mutawaatir waxa la yiraahdaa tiro badan oo xad lahayn oo muslimiina soo sheegay inay arkeen meel ma wada joogaan been iskuma raaci karaan ismoodsiis iskuma raaci karaan suurtagalna ma mustaxiil waay ilaa galbeedka Afrika Mauritania iyo muxuu ahay Mali iyo muxuu ahay ilaa Niger ilaa muxuu ahay iyo bariga Afrika oo dawlado kala duwan ah ummad inta la eegoon is ogeyn in ay sheegaan oo yiraahdaan bishii habeenkii sabtida annaga aragnay ma beenaalayaal bay noqon karaan bal isweydii intaas been ma isku raaci karaan bal isweydiyo intaas ma isku raaci karaan ismoodsiis iyo xidig bay moodeen dayax iyo xidig bay bishii moodeen ma isku raaci karaan waa wax aqliga bini aadamka iyo curfiga midna aan suurtagal ahayn waa mustaxiilaadka shib mustaxiil waa mustaxiil waa macquul ma shariicadu inta in ka yar bay wax ku qaybsataa wadamo dhan ilaa 8 wadan 7 wadan oo shucuubtoodii in badan soo sheegeen warkooda iska badaaya shariicadu saan soo sheegnayba laba ruux oo muslima oo soo sheegay xataa meel wada jooga bay shariicadu tiri ku afuro kuna soom marka dadka in la wareeriyo walaalayaal sax ma aha in muxuu ahaayay masaa'il u baahan xaqiijin in la leedo fuulana runtii sax ma aha masalada lixaad doonayo inaan halka kaga hadlo waxay tahay waxa jira wax la yiraahdo xisaab falak nimankan xisaab falakiyiinta ah oo manaasisha qamarka iyo muxuu dayaxa iyo qoraxda iyo say isula socdaan iyo say u kala dambeeyaan iyo xisaabtan falakiga la yiraahdo oo hadda maraakiis fara badan laho yeelatay muxuu ahaay qalab teknolojiya fara badan yeelatay oo laakiin cilmi horeeyay ah hadii xisaabta falakiga ay tiraahdo lama arki karo oo ragii culimadii falagu iyo maraakiistii falagu ay yiraahdaan lama arki karo kadibna ay sugnaato la arkay dad muslimiina farqaati furaan inay arkeen ma xisaabta falagan qaadanayna mise aragtida muslimiintu sheegan baynu qaadanayna culimadeena sunnadu iyo fiqigu way ka hadleen mas'alada falaga iyo ictimaadkiisa waxay kaga hadlaan ninka isagu falag ahaan ugu qancay inay bishii dhalatay
asagu ma ku soomi karaa cidda uu u sheegay warkiisa ku qanacdayna ma ku soomi karaa ma bannaan tahay inuu ku soomo sharci caam oo ummadda lagu wada camimo oo lagu laazimiyo qaabka ugama hadlayaan isaga shakhsiyan ku qancay cilmigana garanaya ma ku soomi karaa mise kuma soomi karo dad uu u sheegay oo kula qancay ma ku soomi karaan ma bannaan tahay baa laga hadlayaa waajib bay ku tahay maaha طيب laakiin taas ma bahaba in cilmiga falaga la kaalmaysto ba loo kaalmaysto bishii suurtagalba mar la arki maayo macluumaadkeeda loo kaalmaysto raadinta la raadinayo iyo fiirada la fiirinayo in loo kaalmaystana iyadana mushkilo male lagama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa aragti baa waxay ku sugnaatay qaab sharci ah dad muslimiina arkay way qireen wadaadadii falaguna waxay yiraahdeen suurtagal ma aha ma falagan hormarinaynaa mise aragtida nabigu qaata inuu yiri bayna hormarinaynaa waxay leeyihiin culimada imaam an-Nawawi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah aymadu waxay leeyihiin nusuusta sariixa iyo ittifaaqa saxaabadu waxay tilmaamayaan in aan xisaabta falakiga loo khilaafi karin wixii nusuustu sheegtay oo ah aragti ku sooma aragti ku afura markhaatiga iyo cadaynta soo aroortay ee dadku qirayaan qaata taasa la qaadanaya culumta falagana looma khilaafi karo arintaasina runtii waa saabiqa khatar awaay manaataadkii shariicadu wax ku xidhay oo arka oo fiiriya oo markhaati raadiya ahayd haddii inta laga guuro la yiraahdo ma falag baa beeniyay culumtii falaga beenisay haday beenisayna aragtidani waxba kama jirto falaga muqaddasa wadaadada falaga warkooda saxa tan tadaata ummadan dhan ee aragtayna waxba kama jiro waa mukhalafa sariixa waay waa si cad oo loo khilaafay nusuustii loo khilaafay waay maxaa yeelay manaadka shariicadu wax ku xidhay manaad aan ahayn adiga hadad wax ku xidho waa tagyiir waa qaanuun badal waay shariicadu waxay wax ku xidhay arag ku soon sodon dhamee ku soon dad lagu kalsoon yahay aragtidooda ku soon shariicadu halkaas wax ku xidhay adiguna waxa tiri taas waxba kama jiree falaga iyo wadaadadani waxay sheegaan baan ka hormarinaynaa miyaysan ahayn marka meeshii shariicadu wax dhigtay intaad beenisood ka guurtay in aad mid kale ku bedelatay miyaysan ahayn qaababka sidoodaba tagyiirka ku dhaca iyo tabdiilka sharaa'icda ku dhaca soo qaabkaas oo kuma yimaadaan waa mas'ala halis waay mas'alada falaga ma la kaalmaysan karaa hadii bishii la waayo mas'ala kala waaye ma la cuskan karaa lama cuskan karayo laakiin bishii la arkay intaasoo jamaahiiro muslimiinta ay arkeen intaasoo dawladooda ay arkeen يعني suurtagal ay ahayn inay khalad isku raacaan ama been isku raacaan oo istifaada iyo tawaatur ah oo xaaladda ay isku waafaqsan culimadu isku waafaqsan yihiin in la ictibaarinayo inaad intaad beenisa tiraado ma falaga diiday warkaasi waa saabiqa khatiir awaa aad bay halis u tahay sidaas daraadeed waxaan leeyahay masaa'ishaasi waxay u baahan tahay in aad looga fiirsado waxaana masalada ku ibtilaysan in la taqdiisiyo falaga iyo xisaabtiisa wadaada mucaasiriina ku ibtilaysan qolo falaasifa baa ku ibtilaysan qolo aqlaaniyiin ah oo aan nusuustan waxba u ogeyn iyo meeshii shariicadu wax dhigtay baa ku ibtilaysan wayna jiri jireen aqlaaniyiin diinta aqligoodii waxay ila tahay iyo falsafada ka hormareeyay hadda meehe way horeysay ani kama dooday masaladan ka hadlayaan loo fahmin falaga sidiisaba ma loo ictimaadi karaa bisha hadii la waayo waa mas'ala kale way khilaafkeeda leedahay bisha hadii la waayo falaga xisaabaadkiisa ma lagu qaybsan karaa mas'ala kale way ma la kaalmaysan karaa bishii sidii loo heli lahaa mas'ala kale way laakiin waxaan ka hadlay wax weey aragti sharci oo sugnaatay in looga tago calashaan xisaabta falaga mas'alada way mas'aladan ka hadlay mas'aladaas mas'ala khatiira waa aad in looga digtoonaado way liskana jiro يعني waxa iyada wixii ku ibtilaysanba waa mukhalafo sariixa oo muxuu ahaay khilaafsan nusuusti shariicada khilaafsan waa iyo waliba ijmaaci saxaabada ridwaanullaahi calayhim qodobka kale wax weey oo islaamiyashaasa falakiyiinta laftooda waana mas'ala muhiim falakiyiinta iskuma raacaan inta badan xisaabta falakiga iyo mu'tayaadka falaga iyo waxyaalaha soo saarayaan iskuma raacaan mid baa wax sheega markas kaliya center kala beeniya mid caalim falakiya war sheega ku kala yiraahdo waxba kama jiro waa
mid labaad waxaan u soo joognay marar fara badan intay yidhaahdaan falakiyiintu isku raacaan meel hebla bisha lagama arki karayo intaasoo khalaa'iqul muslimiina inay sugaan oo arkaan dawladuhuna qaataan oo ku soomaan iyadoo falakiyiintii leeyihiin lama arki karayo marka falagan la taqdiisinayo leeyahay xisaabtiisu waa muqaddas ma khaldanto waa ijtihaad bashariya way khaldamayaan waa ismoodsiinayaan waa ijtihaadayaan daqiiq kasto yihiin si kastay u dadaalaan marar badan waxa cadaanaysa xisaabaadkoodu inay khaldan yihiin waxa sidaas oo kale marka in marka nusuusta iyo manaataadkeeda iyo meesha wax ku xidhay looga tago arintaasi waa arin aad iyo aad iyadana saabiqa khatarteeda la waay mas'aladaas todobaadan doonay inaan ka hadlo wax weeye mas'alada ku saabsan iskhilaafka muslimiinta inay ciida iyo afurka iyo soonka iyo isku khilaafaan waa mas'alo xajmigeedii qadarkii qiyaasta ilahay laga badbadinayo waa la bumbuuninaya asalku waxa weeye muslimiintu inay isla soomaan isla afuraan isla ciidaan la midoobo mid la ahaado asal saasa fiicnay laakiin haday suroobi weydo mas'alada in dabeecadeeda la siiyo xajmigeeda aan laga badbadinin la bumbuuninin waa lagu kala aragti duwanaan karaa waa la isku khilaafi karaa soonka bilowgiisa lagu kala duwanaan karaa ciida lagu kala duwanaan karaa maalin iyo laba bari baa la kala dambeyn karaa ijtihaadaad waay sidaasayna u jirtay waqtigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaasayna ku wada socdeen xadiidkii fi saxiix muslim reer shaam iyo reer madiina kala soomay xilligii saxaabada cabdullaahi ibn cabbaas muxuu ahay xadiiskiisa uu ka hadlayo abu kurayb xadiiskiisii طيب waxaa kaloo sugan sidoo kale atarkii hadda aan soo sheegayna saxiixa ee Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wuxuu leeyahay Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ninka taabici weey wuxuu leeyahay waxa noo yimid qoraal uu soo qoray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anagoo joogna meesha la khaniqiin bishii Ramadaan ayaa markaasi dhamaada marka qaar anaga naga midana way sooman yihiin qaarna waan furan yihiin buu فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم dadka wada joogay muslimiinta ah ee saxaabadu u badan yihiin ee qaarna afuran yihiin qaarna sooman yihiin ijtihaadkoodu iskhilaafsan yahay wuxuu leeyahay qolada kale ma ceebaynin qolada kale ma eedaynin qolada kale wax kama sheegin qolada kale muxuu ahaayay ma xukumin Soomaaliyeed qolada yaani afurana ijtihaad bay ku afureen qolada soomana ijtihaadkooda ku afureen oo sidana la xoog badnaatay markaas kitaabkii Umar noo yimid qoraalkii iyo waraaqdii Umar soo diray baa noo timid oo dhahaysa biluhu way kala weeyeen ee bisha hadaad maalinimo aragtaan ha afurina ilaa ay laba ruux soo sheegaan inay shalay arkeen oo ay shalay bishii dhalatay ilaa ay aragtaan soomanaada buur marka saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo salafkii ay hal meel wada jooga ayaa aragtidoodu ku kala duwanaatay qaarna afureen qaarna soomayeen طيب maadaama sidaas oo kale ay tahay mas'alo noocaas dabiiciyan ay tahay mas'alada xajmigeeda loo daayo muslimiinta cidii isla jaan qaadi karta oo isla afuri karto isla soomi kartana khayr iyo baraka way hadii ijtihaadaadku iskhilaafaan oo lagu kala aragti duwanaadana arin kala duwanaantaasi way soo jiri jirtay iyadana sideeda muslimiinta loo nabadgeliyo la isnabadgeliyo yaan la isku xad gudbin yaan muxuu ahay la isbaadiyeenin yani waxa ijtihaadaad soo jirjay illa xilligii saxaabada soo jireen oo sida arintu ahay maanta oo kale midna hadaad fiirisaan oo macnaha wax way sanadkan hadda aan ka hadlayo 2020 marka la fiiriyo saddex bari baa la kala soomaya maalinkii sabtida ahayd wax oo bisho ay ahayd May ay 29 ka ahayd waxa soomay 7 dawladood oo Afrikaan ah dawlado marka la yiraahdo Soomaaliya ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay Mali ka mid tahay Senegal ka mid tahay Mauritania ka mid tahay Ivory Coast ka mid tahay Niger ka mid tahay ila 7 dawladood oo Afrika ah soomay yaa wax dhila ayaa afuray oo ciiday sabtidii aragtiyadooda kala gedisan bay ku ciideen طيب qolada labaadi wax weeye waxa qolada raacsan yani dad muslimiina oo laga tira badan yahay oo wadamadaas gaalada ku nool qaar kamid ah raacay oo iyagana la ciiday oo anaga kamidnahay qolada labaad waxa weeye waa dadka maanta ciidaya oo ahad ah
oo caalamul islaami sidoo u badan yahay maanto axaday ciidayaan soddonkiiba shalay dhameystireen maanto axadana way ciidayaan qolada saddexaad waaba muslimiintu meeshay ugu badan yihiinoo muslimiinta Hindiya iyo Bangladesh waxay ciidayaan isniinta maanto axada waa soomayeen طيب kii maanta axadda soomay hadduu yiraahdo qolada isniinta yani ciidaysaay kii axadda ciiday hadduu yiraahdo qolada isniinta ciidaysaay waa qaldan waa khariban kii sabtida ciiday hadduu yiraahdo qolada maanta axadda ciidaysaay waa khariban ka maanta axadda ciiday hadduu yiraahdo qoladii sabtida waa khariban ha qaleeyeen war sida waxuma yeelaan masaladuna dabeecadeedu sida ma aha masaladu soo jiri jirtay muslimiintana qolo walba ijtihaadkooda loo deyn jiray sidoodaasayna walaalo ku ahaayeen nabad lagu wada ahaa culimadoodu saaxiibo ku ahaayeen masaa'isha labadii isla niqaashayso oo iska dhaadhicinayso oo iska dhaadhicin jireen laakiin muslimiintuna culimadoodu ay saa ku kala raacsanaayeen aqaaliimta iyo dhulkay ku nool yihiin saa ku kala raacsanaayeen mushkilana ma abuurnayn marka mas'alada buunbuuninta ku jirta iyo ajendayaal kale iyo jahli iyo hawo la socota ayaa waxay abuuraysaa in runtii wax weeye muslimiinta wixii iskaba banaanay mushkilo waa aan mushkilo laga abuuro yani wax weeye masaa'il noocaas oo kale jirtay oo fuqahadeennii iyo madaahibtii aad u isugu khilaafsanaayeen oo iyagoo isku khilaafsan haddana walaalo ku ahaayeen sidaas oo kale la doonaya annagana inaan ula dhaqanno wixii sidaas oo kale iyagu ay ahaayeen annaguna sidoodii baan ku soconaynaa ma khilaafayno mana khilaafi karnaba mas'alada xigta ee sideedaad ee ugu dambaysa kalimaadkan aan ugu talagalay ciidan muxuu ahaayay sanadkan iyo masaa'isha ka dhashay masalada kala doonaya waxay tahay inaan cadeeyo sida fiicani waxay tahay dadka muslimiinta ee caalamka maanta ku nool saddex qaybood inaan kala qaadno qaybi waxa weeye waa qolyaha ku hoos nool dawlado bisha raadinaya oo ku dadaalaya kadibna ilaaminaya oo ogeysiiskeeda bixinaya dadka dawladaha noocaas ku hoos nool waxa sax ah oo fiican dawladahooda ay ku hoos nool yihiin bisha raadinaya ilaaminaya inay raacaan iyaga la soomaan dawladaha islaamkooda ku ciidaan muslimiinta la raacaan aynan garab marin waxay mas'aladu haday khilaafiyad tahay muslimiinta dadka u taliyana ay khilaafkii mid kamid rajaxaan khilaafkaas meesha waa ka baxaya waa in markaas la raaco masaa'isha khilaafiga dabeecadooda sidaa waa hadii culimadu ay masalada ku muransan yihiin laakiin sultada iyo awoodda dawladdu soo gasho oo khilaafkii mid kamida ay labadii ra'yi mid kamida qaadato ra'yigii kale nadari in la doodo oo culimadu ka wada hadlaan mooyeen laakiin amaliyan meesha waa ka baxaya waxa la qaadanaya ra'yiga marka dawladdu ay rajaxday go'aankeeda marka la qaadanaya muslimiinta marka dawladaha ku hoos nool dawladaha waxa ku qaybsadeen ama soo hormareen ama hadib dhaxeen culimada qabta qaarna waxay qabaan culimada ikhtilaaf al-madaalic oo aragtida bisha iyo wala kala adduunku waa kala fog yahay oo qolo walba aragtidooda ay leeyihiin qolana waxay leeyihiin ma aha isku aragti caalamku ha noqdo xataa qolada dambe qabta hal aragti ha lagu wada soomo waxay leeyihiin wadciga maanta muslimiintu ay ku jiraan oo dawlad iyo duwaylaad iyo inay u qaybsameen qolo walba dawladay hoos joogaan ha raaceen islaamkeeda muslimiintana bal hal ilaaliyo midnimada yarta tii weyneed hadii la waayay halkaas ay ka duulayaan culimada xataa qabta aragtida caamka ha lagu wada soomo ha lagu afuro taas waa qodob waay qolada labaad waxa weeye oo muslimiinta kamida waa muslimiin laga tira badan yahay waxay ku hoos nool yihiin wadamo gaala oo aan bisha danaynaynin raadinteeda iyo gelitaankeeda iyo bixitaankeedii aan shaqo ku lahayn waa wax waddan la yiraahdo dadka aqaliyaadka la yiraahdo waay maxay sameynayaan dadka noocaasi dadkaasina waxay sameynayaan haday leeyihiin hay'ado iyo maraakiis u xil saaran bisha raadinteeda iyo ka go'aan gaadhideeda ayaguna waxay raacayaan say culimadu leeyihiin hay'adkooda iyo muxuu ahaayay maraakistooda iyo culimadoodaasi la joogta ee meesha lagaga tira badan yahay dalka gaalada ku hoos nool yihiin ay raacsan yihiin diin ahaan ayagaas iyaguna ku xidhmayaan xilligii ay iclaamiyaan ama hadib dhaceen ama ha soo hormareen ama dawladaha kamid ah ku xidhmeen ama aragti madax banaan iyagu ha raadiyeen
ayaga iyaguna hay israacaan waxaa timid qolyahaasi ku hoos nool wadamada laga tira badan yahay muslimiinta bishana aan daneyneynin haddayna wada soconin oo kala socdaan oo kala soomaan maxaan sameeynaa marka waxaan leenahay muslimiinta dalalka ku nool hadiiba la israaci waayay oo sidii fiicneyd la waayay cid waliba cidii ay isleedahay culimadii ay isleedahay maraakiistii ay isleedahay hay'adihii ay isleedahay dadaalkooda iyo alla ka cabsigooda iyo cilmigooda ay ku kalsoon tahay ayay dadweynuhu raacayaan markaasi waxa weeye waa muqallidka muxuu ahaayay intii ku waajibaysay waay fas'al weydii marka cidii aad isleedahay kana dadaal roon diinahan ku kalsoon tahay aad isleedahay muxuu ahaayay waa kula saxsan kaasaad markaasi aad raacaysaa oo la soomaysaa oo aad la ciidaysaa waa hadii يعني dadka aqaliyaadka ee wadamadaas ku nool israaci waayaan haday israacaana yaan la jabinin oo la khilaafino yani wax weeye hay'aadkaasi ay ku midaysan yihiin hal la wada raaco طيب taana waa qodob kale waay annaga markan ka hadlo Kenya ahaan waxaan aad u tamaninay muddo dheerna ka shaqeynay in la helo hay'ad maadaama muslimiinta Kenya laga tira badan yahay dal aan daneyneynin bisha aan raadineynin aan ku hoos noolay dawlad ahaan marka la yiraahdo hay'adka muslimiinta matala ayaa waxaan muddo ka shaqeynay 20 sano ka hor waxaan ka shaqeynay in la helo jiho muslimiintu sameeyaan oo u xil saaran bisha raadinteeda go'aankana iyadu ka gaadho muslimiinta kalena ay raacaan arrin ku saabsan waxaan xusuustaa dhowr 10 sano ka hor Mombasa u aadnay aniga Sheekh Maxamed Sheekh Usmaan iyo culimada ku jirno Mombasa u aadnay muxuu ahaayay chief qaadiga oo kula kulanay oo aan isku daynay in muxuu ahaayay la sameeyo waa suroobi weyday hay'aadka marka muslimiinta madala ama masubka ma noqoto golaha sare muslimiinta ee Kenya ama qaadiga han noqdo muxuu ahaayay jiho rasmi oo hawshan qaadata oo meel walba muslimiintu meel la soo xiriiro bishii la sheego cidii aragta ku soo hagaajiso ma hayno dadaalkeeda wali laga ma quusanin laakiin ilaa hadda ma jirto jihada ugu roon waa chief qaadiguna marar fara badan bishii oo laga arkay wadanka gudihiisa ayuusan danaynin waa mid keentay marka in la yiraahdo hal dadaalo hal isku tashado waa mid keentay annaga inaanu isxil qaano oo bishii intaanu raadino wixii markaanu xaqiijino miisaankii shariicada saarno aan isninaano waa lagu soomi karaa aan isninaano waa lagu afuri karaa inaan marka muslimiinta u sheegno oo cilaamino bidda keentay waa laakiin waxa aad nooga fiicnaan lahayd inaan helo hay'ad wadan ku leeyahay oo hawshan qaadata oo aaliyaadkii iyo waxay u baahnay diyaarsata oo muslimiintii ay ku soo hagaajiyaan cidii aragtay oo xaqiijisa kadibna aan ka wada dambayno marka noo cilaamisa sida wadamada dawladaha muslimiintu ay ka jiraan oo kale sidaas oo kale booska noo istaagtaan jeclaan lahayn laakiin ilaa hadda kuma guuleysanin waana mid keenaysa inaanu anagu isxil qaano intii muddo aba walina maana ka quusanay dadaalkeeda waa wadnaa ilaahay tabaaraka taala noogu kaalmeeyo warka murtidiisu waxaan leeyahay walaalayaal waxaan idin leeyahay tashwiishka faraha badan ummadda laga daayo qaska laga daayo wareerka laga daayo ajendayaashan cid aad iskhilaafsanaydeen maanta ku rog iyo dagaalkan hoose iyo yani waxa weeye laga daayo ummadan cidii wax u sheegaysay ha u sheegto wax sharci ah soonkeedii afurkeedii ciideedii aan shaki la gelinin kii sabti soomayna san soo sharaxnay aragti aan shaki ku jirin oo cad oo aan shaki la gelin karin ismoodsiisna aan la gelin kareynin been la isku raacayna aan la gelin kareynin bay sabtida dadku ku afureen annaguna aan ku afurnay laguna ciiday miisaanka shariicada marka la saarana wax shaki la gelin kara ma aha waa taxadda ninka shaki gelin karaya meeshuu ka gelin karaya u baahantahay marka laga tago muxuu ahay ismoodsiiska iyo hadalka caamada marka laga tago qaab cilmi ah in shaki loo gelin karo ummadda inta leeg aragtideeda bay u baahantahay waxa qariib ah nimanka falakiyiinta inay yiraahdaan waxay arkeen bishii ma ahayne xidig bay meesha ka arkeen waa war qariib ah muslimiinta inta leeg 8 dawladood 7 dawladood oo is ogeyn
inay kala garan waayaan bil iyo kala garan waayaan xiddi kala garan waayaan wax qariib ah xataa qaar kamida inay waxay tilmaamayaan bishu dhanka ay u foorartay ma koonfur bay u foorartay mise waxay u foorartay waqooyi bay u foorartay xataa sharxayaan ma xidig baa foorarta oo caana shubata si Soomaalidu ina caana shubayta dhahaan sidaas daraadeed yani waxa khuraafaadka noocaas oo kala umada in lagu wareeriyo sax ma aha dadkaasina waxay ku soomeen aragti iyo marxaati fur istifaada iyo tawaatur oo khilaaf u soo gali kareenin dadka maanta axada ciidayana iyaguna ijtihaadkoodii iyo dadaalkoodii ku ciideen qolada sabt bari oo inaga dambayso isniina ciidayana iyaguna aragtidooda ijtihaadkoodii ku ciideen kullina ilaahay ciidoodii iyo soonkooda ha aqbalo tashwiishka marka iyo qaska in uun يعني وحوي أنا إلهذا لأنه وحبتي سؤالها وحبتي دتك وريرسن وحبتي دتك دجالمية وحبتي دتك محوها اسمه سيسكو كل عي دتك لما قلينا إنه يعني تشويش بدن بقى أمد الجلية وحلا مركا تشويش متشرو نقول بماشي ون اجتهاد كيسو كلا كفي يماشي اجتهاد كيسو نقضي وكل صحيح هاي طبعا عدم مسألة واسدة سيدا سين سواء هنشرتي أنا جنا وحبك ما بدلي كرنو wax ka fiican hadaan uga guuri karno waa ka guureynaa insha Allah ta'ala laakiin hadii wax ka fiican la waayo inteeda iyo sida ay tahay muslimiintu walaalaha ku ahaadeen nabadha lagu ahaado nin walba tiisi oo qaatay ilaahay tabaaraka wa ta'ala ha waafajiyo khayrka sidaana ha lagu wada socdo yani waxa weeyaan khilaafkan iyo doodan iyo qacacdan social media iyo dagaalkan shaarica iyo waxan socdana hal iska daayo wax nafci adduunyo mid aakhiro midna malaha mas'aladana ehelkeeda ha loo daayo إلهي تبارك وتعالى توفيق ده هنا وافجيو وحان انت ku dari lahaa oo ku gabagabayn lahaa masalada ugu dambaysa soonka shawaal oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam markii ramadaan soomay 6 bari oo shawaalana raaciyay sanadka soonkiisa oo sanad soomay bay u dhigan tahay laana sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam al-asharatu al-hasanatu bi 10 amthaliha ramadaan inaan soonnay waxay u dhigantaa 10 bilood ugu yaraan 10 bilood bay u dhigantaa sanadkii marka 2 bilood baa ka dhiman 6 bari oo shawaal markaad soonto oo iyadana 10 lagu dhufto waa 60 bari sidaas aad labadii bilood ee sanadka dhimadna ku soontay kaana ka siyaami dahri way sanadka oo dhammaad marka soontay ajirkeeda lagu siinaya marka 6 bari laazima horta bisha in lagu xijiyo soon ramadaan haduu dhamaado in lagu daba qabto laazima muhiimadu wax weeyaan bisha shawaal 6 bari oo kamid ah bisha aakhirkeeda ha noqoto ama dhexda ha noqoto ama bilowga ha noqoto maanta maadaama ay axad ahayd marka su'aalo badan baa igu iimaanayay dadkii sabtida afuray axadda ma bilaabi karaan shawaalka maadaama dad muslimiin ah waliba in badan muslimiinta kamida ay ciidayaan maanta axad ah waxa fiican soonka shawaal in dib loo dhigo oo isniinta laga bilaabo muxuu ahaayay ama hadiiba talaada laga sii bilaabana ka sii fiican maadaama isniinta bay muslimiinta qaar kamida ciidayaan marka misaladaasina iyaduna sidaas weeye ilaahay tawfiiq dayna waafajiyo jazaakumullahu khayran saayishaasaan rabay xogaa inaan dul istaago cadeeyo walaahow far badan ka dhashay iyo buuq far badan labadan bari su'aalo badan ay ka yimaadeen ilaahay tabaaraka wa ta'ala amaashiina aqbalo ciideena ciid barakaysan Allah ka dhigo muslimiintana ilaahay tabaaraka wa ta'ala tawfiiqda Allah waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa ta'ala wadcigan iyo xaaladan ay muslimiintu maanta ku sugan yihiin ku ka fiican oo midnimo iyo qarannimo iyo wada jir iyo awood ilaahay tabaaraka wa ta'ala ugu bedelo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi